madax dhaqameed haween iyo wax kala degan gobolka Daadmareer ayaa waxay ka hadleen dhacdooyinkii u dambeeyay dalka ka dhacay gaar ahaan waxay si gaar ah u dul istaageen saameynta taban ee reebi doonto hadalkii taliyaha ciidamada militariga Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani waxay ugu baaqeen madaxweynaha Soomaaliland inuu ka falceliyo dhacdooyinka dhacaya ninka kale magaca leh ee Taani reer xamarku Taanida mala waxay u yaqaaneen caanteynka waxaan leeyahay islaam baa seexatay subaxii markii ay toostay bay ninkeedii waxay ku tidhi xalay waan riyooday wuxuu ku yidhi ninkii naa markaad soo jeedaba run maa sheegi jirin waxaan leeyahay adigana caarraa intaa kugu odhan caarra ninkii ilqalloocan ku eega shan baanu ku eegaynaa waxaan leeyahay jawaabaha ka soo baxaya dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Taani leh ee madaxweynaha leh wax loo qushuciyo wax la arki karo toona midna maaha waa la iska dhagamaray laakiin way dalbatay saaka halkay maraysaa maaha halkii jawaabaha isaga madaxweynuhu weynoo jawaabay wuxuu ku jawaabay aamus daadkiina wuu gurmaday dadkii meedhanayayna muu gurman taasi waa jawaab qodobka labaad ee xiga waxa weeye taani manaan buu arkay wax meeshaba yaallay meehayn dowladdan kala diraya ciidankan kala diraya qaarka kale jooga una ka daba taga wax meeshaba leeg meehayn waxaan leeyahay Taani haddii madaxweynuhu wax ka qaban waayay ciddii wax ka qabanaysa kale waa la yaqaan waa annaga haysan maysid xilkaad hayso ladnaantaa ku jir maysid fooqyada saar maysid waad baydhsan tahay jamhuuriyadda Soomaaliland raggii u soo dagaalamay halgan soo galay dhiigga soo shubay saaka inaad ku dul tiraado kala dareera noomahay barkaatu halkan waxaanu kala hadlaynaa waan maqlaynay وبرها برشة يا سوشيال ميديا أرمي كسرني لا بدي شو يدنبي وأنا مقلني سيدا وكيا لي مدحويننا وأنا أركينا شرنكي إذا ما ضنا وحي وكهل لي وأنا مقلني وحوي أو أنا لنا هاي مدحوينا جمهورية الصومال مصبيح عبدي مركوبات هي مرة بعض وأنا لاحظ لنا وحنا لنا نبض عضيك وحننتي adiga ayay kugu xidhantay ima kana nabadii way furantay dawladii jamhuuriyadda Soomaaliland waa la kala diray ciidamadeedii waa la kala diray qabaa'il baa loo kala waxeeyay waxa aan ku leenahay 48 saacadood soo socda ka jawaab inaad wadanka burburinayso iyo inaad wadanka dhisayso ilaalinayso qaladkii ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ee uu daba fadhiyay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland waxaan leenahay nuux taani wuxuu ku hadlay adaa soo faray macnaheeduna wuxuu ahaa adigu dhaana ku daba fadhiyee waxaan leeyahay oo aanu raacsanay garxajis qadadiisu xabad bay ahayd mayd bay ahayd iyo awr la qalo intiiba diyaar baanu nahay wuxuu nuux taani ku hadlayna waxaan leenahay gacmo furan baanu kugu soo dhaweynaynaa fadal waxaan leeyahay nabadgelyadu way wacantay kulli wada arkaysan Soomaaliland wax ka dhacaya iyo waxa maanta xaaladda ay maraysaa Muuse Biixi iyo Nuuxna waa loogi waxa ku hadlayaan laakiin inta mid loo jawaabayno Muuse Biixi iyo Nuux way soo gihii dayaafka dhalinyarada gobolka Daadmareer annagu waxaan hiiliyo hoobe la garab taaganay caarre waana soo dhaweynaa hadalka Nuux Taani waxa weeye maanta waxbaanu wada aragnay in yar maanu dusanay gobolka Daadmareerna weli kulmiyuun ba laga maal jiray maanta waanu cadaysanaa waayo maqaashi iyo waayeelku waxay dareemayeen nabad waarta oo midho dhasha inay ka hirgasho gobolada bariga iyo guud ahaan Soomaaliya adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida